أدونك كعيلي أركونك بوكي انتو باليوغو أدونك كعيلي أركونك بوكي ورعاشق أمي أفكونك شيقين ددال دوغيني ورعاشق أمي أفكونك شيقين ددال دوغيني حدوك وأسيبي انتادي فجوك تجعل ملأويدي انتي ما الميسي حدوك وأسيبي انتادي فجوك تجعل ملأويدي انتي ما الميسي ميو أرقاقو أستانو أهادا يشينو قلودن 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 هوي عارف ودقن حناي وما حسك نقو عيبيه كتاب لي يري رابع حشوداي ما حسنا يا ماها وعيب حتى مرتين كحشودهد waxaan dhaqanka maraanki ها هوي inankeenu khaldamay laakiin marna uu saxsana waqtigii loo baahnaa hadliin way bilaadan way ku baranayaan dan stabiliska sin hablaha sidooda qori faraarla la iskaga qabtaa inta ku soo galin bari bay doonayaan cagtana mariyaan shaqo naga dhigtaan inana dan ku guursanay taa macnaheedu ma hayna nagu soo kalnaa waagiyoon bari marka idaba la iskaga yeelayaan annagu inaan baan guursaday heer sabayacna sideedaba kama helaba maxaad rabtaa laakiin hooy sadaga caayadadka hortooda oo maxaan ku yiri afar kalmood baan ugu jawaabay markay isfaaniseedo wax ma ahayn ina yaro faanayso hadal la darkaysa kugu dhuraysa waa loo jawaabo way lama dhageysto faankuna sidiisaba xad buu leeyahay alla hooyo dilaalada markay ku timaado waxa ku tiraahdaa in bilaa hooya iyo bilaa reer iyo bilaa walaal isoo raadi noocaasaan guursanay yaa oo habaare saasa fiican away hooyadii hooyo hooyo nagara leeyahay anigii almo waxaan doonayaa gurigeeda inaan geeyo marka taasaa jirta la socod maadaama hooyadiina tahay oo saacadaha la sii baxay albaabka la sii dhaafay aniga wax la weydiinaya markii hore maxaad ii soo gejinaysaa dad meel socotaan ma fasax baad rabtaan imika ma ujeedo kale aad ii sheegaysaan ilaa hadalkiina ii dhamaystira maxaad socotaan imika hooyo go'aanka anaga garan laakiin adiga walad niman kugu sheeganaa oo jooji halkaad socotaan iska taga socda labadiina okay way waa maasantahay ina mar adigana maca salaamo hooyo maca saruura tani karbaash badan bay u baahan tahay laakiin hooyo waan ka baqday imka guurkaba noloshabaad iga baqsinaysaana ka waran oo maxaad uga baqanaysaa guurka sadooda sideedaba waajib bay leedahay inay gabadha wax u sheegto inankeedana ay ilaashato si uu reerku ugu qurux badnaado u dhisnaado midda kale way haddii wax la isku sheego la ismacaayin yaa kugu yidhi nolosha waa laga baqdaa ilaahay baa isbaday dadkanoo isku keenay marka inanta marka wax loo sheegaya gubana nolosha ha nicin adigu hana fogaanin wixii ilaahay kuu qorina uu ku hor yaalaa anigu laakiin inanta markaan toosinayo ma khaldani sadohdiiba waa nacay ii soo raadiya aniga nin bilaa hooya yaa hajab waan baxsaday walaal aabbahay waa sakraad kaalayo dhakhtargey walaal biliis waan ku baryayaaye cid qaadaa walaal ma jirto raamiishow adigu walaal kaalena caawi haay marka hore maxay igu soo sheeg waday sheeg xilli dambe ay soo sheegaysaa ka waran sii diyaar garo aan idin imanaye waxaan islaa aabba ku odhan doona inanka maxaad soo lugeysay laakiin hadda waan kaa firsan waayey imikun walaal noo kalaynu qaadnay waa si wacana sii diyaar garooba anaa soo maray imikadaas si ugu dhaqsiyaa badan leh okay walaal haye waay saas isku haye walaal khayr baan isku gina noo soo dhaqso walaal maxaa dhacay aabba maxaa helay ii sheeg bal maxaa aabba dhakhtarka loo geeyey ma lagu soo kordhay walaal maad iga naxinaysaa kaalay balan wada hadalne neha aabba ma waxbaad u sheegteen markaad soo noqoteen ya may walaal anagu ooyin unbaa soo noqonay aabbana waa iska garanaysaa dhiiggii baa ku karay uunana fahmay malaha walaal maxaad saa u samayseen idinka qosley maxaad iiman weydeen
waad ogtay aabbahay inuu wax yaran waxba ahayn wadnuhu ku xanuunayo murug buu idinka dareemay xumahay walaal aad baan uga xumayn ma dhakhtarkan ugu teganaaye xaajiye maxaa dhacay dee raamiish toddobaad shaqadii kumaan aragdee gabadhii oo jeclaha haddii laga gursada taasi macnaheedu maa shirkadeeda inuu baabi'iyo soo imaad fahmin maanta shir muhiiman lahaa muu iman waxaasina waa qalad runaanti mudafiro annagaa khaldana ina marka hore arrimihiisa soo dhex galna ma bal eega inankayga yar mama arkayaba war maaha qalade isagu waa inankuna wixii la doonaa laga yeelanaya maxaa yeele waalid baynu una annaga tan labaad maanta shirkadeeda shir muhiim baa ka jira oo isaga dartiiba waxa yaray markaa maxaan samaynaa ii sheeg bal xaasoo qalad maaha annaga uguma dulqaadan waxaan oo kale maanta wixii ka dambeeyana dee haddii anugu taladeedii hadalkayga qaadan waayo wadda cad baan iska maranana sumbuladina uu ka boodsan yahayna qasab baaban ugu dhisayaaba hadal buu hayaa annaga ka yeeli mayna dee waayahe naadeer anaa imka la hadlaya bal raadinaya halku joogo waana kugu yeeray bal la yar hado bal haye ilaada kadib markaan baaritaan ku sameynay macaankii dhiikarka marquu soo booday laakiin imika baaritaan baan ku sameynay aad buu fiican waana ilaahay maadiyey ilaaliya laakiin dee xanaaqa badan waa inaad ka ilaaliso okay waan iska leedahay inankayga rameesho waxaad ku soo lugeeyey runaantii anigu aad baan u fiicanahay alxamdulilaah ogsidaadard maxaa ku soo lugeeyey waa maxay aniga qaali baad igu tahay ma doonay inay wax ku soo gaadhaan qof wanaagsan baa tahay adugu markaasaa darteed mar walba ku garab taaganahay wax walow dhacaba haysolan marna waxaan ku wiilkaagu ka xumaanaya saa darteed ayaan kuugu iman dhakhtarkana ku keenay marka adeer ha warwarin adigu warwarka badan iska daysamaya runtaa inankayga baa tahay adeer aad baan u farxda adigu soo sama marka adeer waan kuu ducaynayaa mar walba ilaahay cimrigaa ku dhaw adeer aad baad u mahadsantahay maogtahay dee shaydaan baa bukoonay intaa bili-aadan baa loo wala bukoonayaaye dadku hadday weynaadaanna waa iska sidaasun wadda waa xanuun la saaxiib ma ogtahay waa adeer laakiinse hablahaaga intaad haysato un wanaagsan de waxaan kuhi wax waliba ku hagaageen iisoo sheeg waxaad u baahatana diyaar baa ku hayaan aabasay wax kuu gaadheen aabo caadi caafimaad qaba aabasodiga arkaya wari maxaa kugu dhacay aad bana aaba wanaagsan runaantii inantayda wax walba alxamdulilah kordaba faraxsan tahay ramiish baa yimid calaykum ramiish isbarta aabo inankaa ramiish baa ladhaa mogta waa shaqsi wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam saaxib fiicantahay aniga ramiish baa ladhaa anigana sarbaab waayo barasho wanaagsan okay barasho lamid ah adeer runaantii aad baan ugu xumaanay xanuunkaaga laakiin waa wax noo qoran adeer waa caadi saa maaha adeer waa dembi wax ka xumaanan alxamdulilah anigu runaantii aad baad u mahadsan tahay waayo waxaad inantayda baad ii keentay saa ii soo booqato runaantii anigu hanti kale ma lihi keliyaata saddexdaa hablood baan lahay hadday midkood iga maqan tahayna werwer baan dareemaa farxadna way iga dheertay aniga saddexdaa hablood ilaahay igu barakeeyey ilaahay baa mahaddaa leh ayaa aniga farxaddayda iyo noloshaydiiba ku jirtaa runaantii anigu waxaan kaa codsanayaa inankaygiyo inaad inantayda iyo adeer anaad igu ogtahay insha allah gabadhaada weligay waan ilaalin doonaa insha allah dhinaceeda ayaan taagnaanaya niyad jabna waan ka ilaalinaya waxbaa ka warwaran adeer anigu keliyata waxaas kaa codsanaya intaa un dalabkaa yar baan kaa codsanaya inanta ee ilaalisada farxaddeeda aad ka shaqayso waan gartay ilaahay adigu ilmo ku baray ilaahay labadiinu iskiin baday moogtahay farxadna iyo khayr fara badan waad ii rajeeday inanteeduna waa inan qalbi wanaagsan adeer waxbaa ka welwelin gabadhaada anagay nala joogtaa annagaana garabkeeda taagan waad ii duceeyey aad ducaysantahay aabbo aabbo iska waran aabbo wareedha waan fiicanahay xaggeed ku maqnayd maalmahan soo ma ogid shirkaddu inay shir ballaaran lahayd oo shirkaa uu adiga dartaa u baaqday miyaadan ogeyn shirkadda inaad khayr muhiima aad ka tahay hawl weyn aad ka haysa horta maxaa kaas iyo arrimish maalmahan dambe miyaad soo yaro waalatay waa ku sidee maya baan wax kale kuma mashquulsanayn laakiinse arrimaha yar baa i qabsaday saa darteed anigoo ku soo socdaba shirka ayaa adeer waqaar baa xanuunsay saa darteed waan ku noqday yaa markaa dhakhtarkan geeyey war waxay dhawaa maxay waqaarkanaad ka sheekaynayso waqaar arrimihiisi miyaanan ka dhammaan ii sheeg ka dhammaano laakiin arrimaha biniaadanimada lagama dhammaanayo mar walba dadka biniaadanka hadday ku baahdan wada caawinaysaa waan u xanuunsaday dhakhtar baan geeyey taasi ma dembi baa beli sheegaabo
haddaan wax walba dartaa u yeelo maaha bilaadanimada war heedha tii hore ilaahay naga fududeeyey ma mid labaad bad haddana doonaysa inaad gacmaha la gashay sheeg gabadhii hore annaga miyaanan annaga markaa tii horen sheegaya haa ma mar labaad bad doonaysa inuu weji kaa samaysto haddana gabdhihiisi meed ka mida inaad jeclaato ii sheeg war heedha miyaadan bilaadan horta waa ku sidee maxaa kaasiya annagoo aabbahaaga miyaad amarkayga diidaysaa bilaa macni baa taan laga bilaa macnisanayn maanta wixii ka dambeeyana aniga waxaana kaaga dulqaadan maayo soo imaad fahmin waayo aabay dhegeyso adeerkii weya ninkaasi waa nin wanaagsan aniguna caawinaya mar walba garab taagan war heedha waa adeerkaa laakiin adeerkaaga waxyaabaha qaar inaad ugu dulqaadataa maaha anigana taasi kaama yeelayo soo imaad fahmin tii hore dirqi bay nagaga dhammaatay mid labaadna ma doonayo inaan gacmaha la galno haye marka waxaad leedahay bilaadanimada ka baxo xayawaan noqo cidna ha caawinin aaba anugu saan doonaan u dhaqmaya anugu waxaan doonaan samaynaya idinkuna waxaad doontaan sameeya laakiinse qof dhibaataysan anugu kama tegayin marna taana kaaga dulqaadan maayaaba waxaad doonto samey adugu saad jeceshayna u dhaqan wax walba iga codso laakiinse arrimaha noocan oo kale haddaad igu tiraaddaa war heedha ifahan ramish aniga aabbaha baana aabbahaagana amarkiisa amar lama soo dul saaro soo imaad fahmin adiga amarkaaga amar ma soo dul saarayo laakiinse marka ka fursan weydo waa soo dul saaraya aabbo arrimahani shaqo maaha alxaasil anaga hadalkayga si fiican u dhegeysa maanta wixii ka dambeeya amarkayga ayaa meeshan ka soconaya maanta wixii ka dambeeyana gabadha laleeyahay sumbuleed guursanaysaa waana amarkayga ugu dambeeyey hadal badan ma yeelayan ku yidhi soo imaad fahmin cid kaloo go'aankaa celin kartaana ma jirto aniga ayaan go'aankaa gaari waanaad qaadanaysaa hooyadana haddaan la hadlaya waxaan leeyahay sumbule reerkeeda haa haddaba sumbule ciddii guursan lahayd u diyaariya anigu guursan maayo diyaarna uma ihi guur waanu sheegay iyadan yaa haa kor iyo hoos baan ula hadlay anigu hadday caqli leedahay halkan isku iman mayso haddayna caqli lahayna way isku iman doontaa wargaa ramish kugu agmeeraysaa qalbiga afduubaya adimada ku soo doontaa qalbiga afduubaya adimada ku soo doontaa wadnaha abuuraya cashaqa hiniintiisa unugyada ku beeraya inkastood iqiinayso ama aad ilaaqayso ikhtiyaar naftii laashay kaa ooli kari weyday wadnaha abuuraya cashaqa hiniintiisa unugyada ku beeraya inkastood iqiinayso ama aad ilaaqayso ikhtiyaar naftii laashay kaa ooli kari weyday anna ula shadayn maayo adna digasha waa kuu aniguna ilbixi maayo adiguna arxami maysi anna ula shadayn maayo adna digasha waa kuu aniguna ilbixi maayo adiguna arxami maysi adna eraysan kaaway anna ubaxya kuu keenay adna odaxday dhiibtay adna odaxday dhiibtay ice cream miyaad doonaysa inaan ku iibiyo okay laakiin waxaan aad iyo aad ugu xumahay anigii adigoo isguursanay misena aanan toddobabax meel aanan u aadin runaantii taana waa nasiib darro مشكلة ما هنقولي إن شاء الله خير بين قنيسة إن تنور نانتي وحكلا وما يسنداني وحير حلدا يوحبا يسكير عدكد وهو يعني كمان نفسح قادن لكن إن شاء الله تضبحنا ديو دماغو ميلاسن ده تجينا إن شاء الله واحد كفر عدين سمينا يا وقلب وغن وكسودغو سيمات فاهمين مركا إن شاء الله idhigiisa ramiish anu markaan gurigeyga jooga aabahay mu ogolaan jiray banaanka inaan soo baxo imika waban ka helayaaba intanaan kula socsocda adiga waayo waxayba ila noqotayba qof intaasoo dhan guri ku xidhnaayoo kale mishkilad ma lahan haddaad ila socoto anigu farxad baan dareemayaa intanaaba naga badan
uma baahninba wax kale inaan sameyno anigaba sidoo kale runaantii aad baan u faraxsanahay runaantii aad iyo aad waxaan ugu xumahay anigoo qarashka aad igu yaryahay maxaa yeele mishaarkan qaato saan usoo qaado hooyaday aan gacanta ka saaraa hooyadayn runaantii aad baan u jeclahay iyadoo taa ay jirta ayaa haddana waxay soo food saaray walaashii suubiya arooskeedii inaan lacag usii diyaariya rabaa waxaas inaad ka weerarto looma baahna annagu iminkaan faraxsanahay suubiyana waa walaashay adiguna inaad faraxdaa la isku dayo okay maasha allah runaantii aqligaaga aad baan ugu riyaaqay ma aad baad fiican tahay runaantii marka waxaa kaloon kaa codsanaya walaalkay iyo walaashii iyo mararka qaar hooyaday hadaladeeda inaadan marnaba waxba u arkin waa waalid iyo walaalo annaga naga yaryar marka dulqaadkan waa shay muhiim ah inaanu dulqaadana waa loo baahanya adigana runaanta dulqaadka laguma tilmaamayo waxaad moodaysaa adigana dhegeyso walaal anigu horta reerkiina uma bigin laakiin haddana waan iska dulqaadanayaa wax kasta igu sameeyaana nasiibkaygii noqotay marka waxba ha werwerin okay dadkaasna waa okay waan rajeynaya taas maxay la gabar wanaagsan baa tahay anigana waxaan ku ballan qaadayaa wax walbaad iga codsato inaan hortaada keeno kaliya laakiin adiga waa inuu qalbigaaga nadiif ahada waalidkayga iyo walaaladayna intaba inaadan marna waxba u arkin waqtigaa naga dhamaadan u malaynayaa lacagtaan iska bixinaa kadibna waan teganaa okay waayahay والله وان كايابي هكا فدي احلى الشاحي كاسوبياي cunteeyka ma shaqaysato ma shaqaysto inta jaamacada dhameysay ayaad halkan fadhida bila camal adleeda hooyo lacagiisi ina hooyo anagana nalada shaaxa noo karictana kala dheertay maxaa kala shaqadii arrimaha ka galay beerkaan ku halaga marta markuu shaqadii waxay soo figilin ma kuri meesha aad ka shaqayn shaaxa soo shub weeyaan cunto kale wax kale meesha waraatana sadaqan iyo xuni maalin iyo habeen halka ka quraac meesii maalin iyo habeen cuni meesii si dumarka dhex fadhida guriga war maxaa dhacay sida ciyaalka saysataan maxaan sanaba kuri ina teerad dhashay ba kuri aan afkiisu taagay ma haysteen ka weyn ma ixtiraam sama kuri anu beerkaan ka laag marta ma haday arrimaha ka soo gashay war inanteeda beerka ma laagisa aniga u nool iga wallahi ta beerka laag weyn ka daadi waliba ma hada maana shaqada ka galay ba kuri yada wadda kuma bil amal hasma loo fadhiya baan kuri guriyo meesha la hurday 4 saacadood baan kuri marka anu dhalinyarada tahay isku hurdo ma kamid hayde oro la naca qof bil amal gurigu sida ugu soo taagan intan nabadgelyo magaalada la galo shaqaysada orado bax maxaa guriga kugu soo meermeeri rag dhulka u kacaan gurigan baad sida u dhex taagantahay inta ku shaqo soo raacay Soomaha qoymada dhashada soo raacay Soomaha dad qoymada beerka la weeyma kuri waxay wadi markaa arimahayga shabaq ibaga bay nabadgelnaya hadii kale anu dhagaha ku qosama kuri gurigan ana ka taliya baan kuri ma fahanteen wareeyaa la suuq waxba aniga ma adkidaadare oo si dumarka guriga dhex fadhin walaaka sababa ku dhama waa miskiin iyo soo galo baxlamaha labada ka sabab Soomaa afar cisho kaliya sabab qooma kuri afar cisho ka bacdi wax arki doontaa baan kuri isagoo isbedelay oo gabadha iska adkaatay baan kuri oo gibigiina baa la rifo ay arki doontaan aniga ima ixtiraamtaanay sarbaab ka bixi weydina baan kuri wada arki doontaa sarbaab wixii ku sameeyo naagtaasaan garanaya waa qumaya baan kuri qumaya dhashay waxaan kuri nafteedii keeni doontaa baan kuri anu waan idin sheegay minka aniga hadalkayga ma dhageysataani waad arki doontaa baan reerkan oo baabaa hadhow hawdhana caarif been buu idin sheegay هاي مثلاً شو واحد محنوها باري هرت ولكن هو باري عيدنا كم هبارت ولا نقص قطع إما كان أحد كان تينا ذا أنت يرد ترس إسكوب حوار كأنا مال كلا لهل وحركني أنا إدقيت السبب هو يشيء إننا نمد أنا معنا سوق كالي ما حد كوالسا نوشينا منا نحرقهين بفضلكم نمر جوجا إسكالنا تلا بعد أنا جوابي اللي ودي هو يتكفي سامع maya inay inasugasaa laga yaabo way noo warwarsaynta marka inaan soo hooyanayaan sheegay beenta maaha laakiin hooyo way ogtahay inay imanayna annaga talabad haylaaban anigana xaqan kugu leeyahay laakiin adigu ninkaygii baa tahay hooyana waa hooyo si uhadlaysaa hooyo waan ogay hooyo way laakiin oo maynankayga waxaa samaynaya ya oo waydi sidee hooyo waxay bila camal kanaad noqotay guriga miyada loodina dhalinyaro joogto ماما maxaa dhacay hooyo naaya saco waxa dhacay waxba kama gelin anu goobahan markaan ku hadlay adiga hor dhaqaaq saco laakiin hooyo annaga waan iska soo dalxiiseena waraay misadi saacadu ii sheeg saacada hooyo 8 saac way waa oo markaa saacadahan meelahan taaganteen xilligaad socotaan ma xisaabsan idinku talabaad guriga dhalinyar baa joogta sida dibjirteeda dhaqmisan ee dhaqankiina waxay jacaylkiina xada yeesho hooyo edabtana ilaaliya anigu markii hore horta ma ka fiirsan baarimaan oo kale inantana hab dhaqankeeda kamaan helin sida u socotaba hooyo amarkaaga jira
midda kale inantanuna si dhaba ugu guuriyaa ugu dhaqsaha badan leh sababtoo ah dee dhaqamadan iyo basaradan ay baranaysaa kuwan oo kalena kuwa lagu dhaqmi kara maaha idinkuna eedaba socda waree caarif ha hooyo adiguna caana soo iibi gabadhan midbakhay gelaysaa in la mashquuliyo weeyaan caanihii bariiska aad ku samayn lahayd baa laguu keenayaa yaa madbakhaanad ku qoran tahay yaa haye hooyo soo hadal siimaa waan mashquulsanahay anigu walaal maxaad ka mashquulsan tahay ma odaygaagii baa kula jooga iska waran arta maya walaal bariis iyo caanaan karinayaa yaa oo walaal bariiskii caanaad sheegaysaa muxuu yahay haa walaal jikadaan ku jira waxoogaha idhegaysa walaal ma adigoo aroos ayaa lagu yidhi bariis cad iyo noo kariya iyo caano idhegaysa walaal aabaa ku doonaya inaad la cashayso kaale maxaa ku dhacay walaal maxaa jira walaalo markaad noo timaado waayo walaal okay waaye walaal waan imanayaa yaa bariis cad iyo caano inanteedii meel xun bay martay suubiya ma waxbaan ku siiyaa maya waxba uma baahan midda kale kana waa gurigeyga marka waxaa u baahan inaa soo qaadanay waad mahadsan tahay lama baahan inaysa dhibti marka kalena hooyaa ku yeeraysa si degdegaa ii kaala bay ku tiri waayahay aabbo iska waran dhegaysa war baan ku sidaayay maanta walaashay waxay diyaarinaysaa bariis iyo caano intuu boolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee intuu boolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee urcaashaqku uumay afkuuna ka sheegin dada